dareemi karaa gabadh way dareemi karaysaa caadadeedii ka khalkhashay isla markaana dhiig joogtay markasta uu ka socdo marka aad baan ugu fiicnaaday ilaahay awlaad buu siiyay laba awlaad buu siiyay mataan ah imika xitaa umur baanahay muddo dheer muddo 5 sano aan xanuunsanay ma sha Allah waan fiicnaaday anigu horta qof maxsuuda baan ahay iska xanuunsadaysa in badan dawooyin baan ka qaatay al-shifa dawada dabaysha 4 jeer baan qaatay Allahumma salli ala Muhammad ilaahay wuu igu caafiyay ilaahay baa caafimaad ka bixiya horta markii hore waxaan xanuunsadayay in badan baan xanuunsadayay muddo ilaa 4 sano baan xanuunsadayay ilaa shafar badan oo kala duwan waan tagay dawooyin waan qaatay anoo sidii wada il darano xanuunsadaya ayaa maqlay al-shifa inay bixiso iibiyaan dawada dabaysha sixirka iyo isha iyo waxa soo dhan ka dawaa kadibna toos baan u soo aaday waan qaatay marka bishii ugu horeysay markaan qaatay ilaahay wuu igu caafiyay alxamdulillah rabbil caalamiin xitaa odaygan aan imika wada joogno 4 sano ayaan isqabnay wax awlaad ilaahayna ma siino ma aan dhalin waayo 4 sanaba inta ugu badan markaan wada joogno xanuunka ugu badan baan dareemi jiray kadibna dawadii dabaysha markaan qaatay waxaan dareemay deganaansho iyo maxay hayday nafis ayaan dareemay alxamdulillah marka waxaan qaatay 4 jeer baan qaatay markii ugu horeysay waan qaatay oo ku caafimaaday mar labaadkiina waan qaatay markii ugu dambeysay aan qaatay ilaahay awlaad buu igu siiyay laba awlaad buu igu siiyay mataan ah imika xitaa umul baanahay oo waa mataano waqtigay dhasheen weeyaan anigu hargeysan ka qaatay tiyaatarkan ka qaatay ma fogi aniga qudheer meerad baan suuqa ku haysto waan ag deganahay jidhii ugu horeysay soo degtay ayaa la sheegay imika xitaa macmiil kale ma lihi madaxu hadduu yara xanuun ayagu baan u imaada dawada ka qaataa waayo dawadoodan ogahay dawooyin badan oo magaalada dhex yaala oo ilaashadu ay bixiyaan oo qaar dibadda looga keeno waayo hargeysa waa magaalo weyn oo caasimada waxaana imika ku badan sidaad u aragtay mooyaane ilaashadu way ku badan yihiin iyo quraan saarka de marka inkastoo quraanka wax la diidanay hayno dawadii ilaahay maxay ahayd dawada la bixiyo bil aadamku ay bixiyaan ta ugu qaalisan ay tahay laakiin waxa kale ay kaga duwan yihiin ayagu dawadooda quality quraan saarka meel walba quraan saarka qofku iska saari kara laakiin dawo ay xanuunka taabadaysa ay bixiyaan way iibiyaan waliba dawada dabaysha aad u fiicantay ma sha Allah kadibna aanu dawadii xitaa sidii u cunaayo oo is ogeynba ayaaba ur 2 bilood baba lahaaba markii hore laakiin 3 sano ayaan guri lahaa 3 sano odayga wada joognay wax uura ma lahayn ilaahay ba caafimaadka iyo ubadkaba bixiya oo ilaahay ba siiyay waqtigii la igu tala galay baan deem garaysaa uurka qaaday laakiin kulli shay sababta waxa lahaa un baan mareeyay shimbirona lagu soo dhigay dawadan waayo dawadan anigu abaal fara badan baa ma hayaaba wallahi ma sheegayo been abaalan yaray baan u hayaa hooyo muddo dheer xanuunsanaysay ku nool magaalada Hargeysa ayaan ahaa oo meel kasta qabatay oo Itoobiya meel kasta xanuunkaygana la garan waayay oo macdanta iyo dhabarku ay xanuunayay kadibna ashifaan la soo xiriiray 3 bilood ee dabayshan qaatay dawadii ma sha Allah waan bogsaday guriga kama shaqaysan kareen aad baan u xanuunsanay inuu kadeedna maxay waan u mahadnaqayaa waan duceynayaa waxaan leeyahay dadka sidoo kale xanuunsanay insha Allah la soo xiriira ashifa qaybta Hargeysa tiyaatarka ku taala dhabarka macdanta madaxa cagaha ma socon kareen aad baan ayaan kadeedna in xanuunsanay imika alxamdulillah waan fiicanahay ma sha Allah qolkiiba boqol muddo dheer muddo 5 sano aan xanuunsanay waxay xanuunayeen madaxa cagaha dhabarka ma socon kareen guriga kama shaqaysan kareen aad baan xanuunsanay inuu kadeedna kadibna markaan dawadii qaatay ma sha Allah waan fiicnaaday 3 bilood baan qaadanay aad baan u fiicnaaday waan bogsaday alxamdulillah ana horta caafimaad badan baan ka helay wali insha Allah taan waan rajeynayaa laakiin waan bogsaday aad baan u bogsaday xanuun saayid ay hayay xumad bay qaban jirtay daily alxamdulillah waan bogsaday aad baan u fiicnaa waxaan ka qaatay bishii 15 ee tii koobaad bilaabantay 3 bilood isku xigtay xiriirkeed baan qaatay dhameyska tirnay
maasha allah waa dawo aada u fiican oo tayo leh oo wanaagsan. wuxuu leeyahay horta yalaalugu waxay ay leeyihiin tawakhaad, qofku markasta uu tawakhayo uuna waxba qabsan karin, dhabarka aada u xanuunaya, lugahoo kale xanuunaya, macdanta xanuunaysa, intaaba calaamadaheeda weeyaan. marka anigu in badan baan ku wareersanay inaan garanay xanuunka, laakiin intii aan dawada qaatay alxamdulillah waan gartay in xanuunka ay waanan ka bogsaday. dadka sidoo kale u xanuunsanayana waxaan leeyahay dawadan qaata dabaysha 3 bilood. culimadana aad baan ugu ducaynay. alxamdulilah marka hore ilaahay baa mahad oo dhan iska leh. marka labaad al-shifa waxaan u yimid anigoo xanuunsanaya muddo 2 sano ku dhow. waxaan ka xanuunsanayay dhabar furan ayaan markaas lahaa oo ka cabanayay. alxamdulilah waan u yimiday, waxaan uga waramay xanuunkayga, waxaan qaatay dawooyin runtii aad iyo aad aan ugu caafimaaday. 3 bilood baan dawooyinka qaadanayay. bil kasta markaan soo dhamaysto waan imanayay. bil kastana waxaan dareemayay caafimaad. alxamdulilah ilaahay wuxuu igu daray caafimaad runtii aad baan ugu wanaagsanaaday. waxaan dareemi jiray caadada iga khalkhashay, dhiig aad u badan oo waqti kasta iska soconaya, deeqa fara badan, hawsha guriga oo kale nacay inaan qabto. marka alxamdulilah maan dareensanayn xanuun ruuxiyana inaan leeyahay, laakiin markaan imiday dawooyinkiina la siiyay aad baan ugu ladnaaday maasha allah. waxa lagu sheegay dabayl, marka dawada dabayshan qaadan jiray. waxaan qaatay 3 bilood. bil kasta markaan dhamaysto waan imanayay, haddana bisha kale waa la ii qorayay. 3 bilood baan qaatay. alxamdulilah caafimaad aad u badan baan iska dareemay. dhiiggii oo sidiisii igu soo noqday, igana joogsaday dhiiggii faraha badnaa ee markii hore iga soconayay, firfircooni, shaqadii iyo hawshii aan markii hore nacay oon hadda aad u qabto. alxamdulilah anigu inan baan ahay. waxaan ka cabanayna dhabar furanka iyo dhiigga inta badan iga soconayay iyo maxaan idhaahdaa hawsha guriga nacay iyo buuqaas. intiina alxamdulilah ilaahay dawada wuxuu igu diray dawo aad baan ugu caafimaaday. kolley qofku dareemi karaya, gabadh way dareemi karaysaa caadadeedii ka khalkhashay, isla markaana dhiig joogtay markasta uu ka socdo. xanuun aad u badan baan dareemay wallaahi. alxamdulilah aad iyo aad inkastoo caafimaadku niyadda uu yahay, marka dawo qaadatid inaad niyeysatid inaad ku caafimaadaysid waa muhiim. marka aad baan ugu fiicnaaday wallaahi. waa run, dadkeena horta aad iyo aad waxay u isticmaalaan kiimikada, waxay tagaan dhakhaatiirta, markaasna aanay faa'iido sidaa u badan ka helaynin. kolley waan wada ogsoonahay dawada kiimikaalsha maxaan dhahdaa markaad isticmaalshid inuu xanuun baabiyoon ay tahay, kadibna muddo yar kadib xanuunkii halkii uu kaaga bilaamayo. marka waxaan odhan lahaa in horta la ogaado waxaa muhiima, qur-aanku waa daawo. dawooyinkan qaatayna waxaa u badnaa qur-aan oo lagu soo akhriyay, ducooyin. marka waxaan odhan lahaa runtii hala isticmaalo dhirta iyo daawooyinka dabiiciga. wallaahi waxaan kula talin lahaa horta waxaa muhiima qofku inuu 5 salaadood tukado, adkaarta la akhristo galabta iyo subaxii inaad akhristaan dadku oo aad ugu wanaagsan. sidoo kale inuu iscilaajo qofku naftiisa, isagoo qur-aan isku tufo, xarumahan oo kale u yimaado. haddii ay jirto cabashada aan haddaan kasoo gudbay oo kale qof ay haysato, waxaa muhiima inuu halkan la soo xidhiidho si dawooyinka u qaato, niyeysana inuu ku caafimaadayo insha allah.